بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين maanta waa maalin isniina taariikhduna waa 21 bishii lixaad 2021 waxaan ku talagalay inaan qabto shir jaraa'id sababtiisuna ay tahay sida soo socota waxaan ka mid ahay guddigii loo xil saaray baaritaankii dilkii Sheekh Cali Axmed Faarax Sheekh Cali Dheere iyo waxyaalaha ku xeeran guddigaas oo uu magacaabay madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor sababta shirka jaraa'id waxa weeye gaashaanle Muumin Xuseen Cabdullaahi oo ah guddoomiyaha guddiga ayaa maanta oo taariikhdu ay tahay 21 bishii lixaad 2021 waxa uu qabtay shir jaraa'id oo aan jadwalkayga ku jirin la islana ogeyn Muumin waxa uu sheegay wax aan ka mid ahayn waxyaalihii aan baarnay iyo xogihii aan gaarnay aan ka mid ahayn waxa uuna ka tegay waxyaalo ku jiray baaritaankeenna oo muhiim ahaa oo haddiiba uu go'aansaday in uu la wadaago bulshada ay ahayd inuu annaga meel goobjoog ah oo aan u dhannahay oo shirka aan isla qabanno hadduu keligii go'aansadana ay ahayd si hufan oo aan waxna lagu darin waxna laga dhimin qoraalkii isaga ahaa uu sheego hase ahaatee wuxuu sheegay wax aanan waxba ka ogeyn waxba ka soo qorin waana wixii aan ka digaynay muddo badan inay dhacdo sidaa awgeed anigoo soo gaabinaya guddoomiyuhu warka uu sheegay naguma matelo waa ku keligiis waxaanan leeyahay kiisku waxa uu u baahan yahay in laga cadaalad falo wuxuuna u baahan yahay baaritaan dheeraad ah iyo meelo badan oo aan la tegin in la tago intaasaan ku soo gaabinayaa warkayga wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu